السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن صاحبada YouTube oo aan bariyahan ka mashquulay oo waxba soo gudbin ku dhawaad ilaa 2 bilood. Muuqaaladan igu dambeeyay waxaan magaalada Addis Ababa, laakiin maanta waxaan joognaa deegaanka Gareebis ee koonfurta magaalada Hargeysa. Waxaan u soconaa degmada Balcabane oo koonfurta Hargeysa ah ilaa 60 kilomitir. Marka bartan quruxda badan ee deegaanka sanadku dhulku barwaaqo haasad la socoteenba roobku ma u qaadin. Waa barwaaqo wataaloodii halka daaqasa. dameeri waa ku halka daaq dameero meel xoolaha hayn dameero ku halka daaqaya dhinacan geeli ba daaqaya oo ka arki doontaan muuqaaladan duubnay ee xagga sare tuuladii Gareebisna wata halka ka muuqata iyaduna wadadani waxa weeyaan wadadii sarfaynta ahayd ee sarfaynta la baneeyay ee Hargeysa koonfurta uga baxaysay Balcabane tagasay xagga hore oo arki doonaa ilaa degmada Sayla iyo wala sameeyay waxaan meel carruur baa la dhigay oo arki doonaa iyadana marka waxaan tagnaa degmada Balcabane amba xuduudka dawladda deegaanka iyo Soomaaliland wanaagsan mar kale waxaan ku guda jirnaa safarkeennii aynu ku marinay degmada Sayla iyo Balcabane imika waxaan ku soo nahay degmada Sayla bari waxaynu haynaa imika jidkii carruurka la dhigay ayaa halkana degmadu waa degmada aadka u qurux badan degmadu waxay ku jirtaa xilli doorasho oo meel kasta calanba ku buufsan saadalka saam kulmiyo badan tahay iyo dhinacna calamadii kala ka muuqda marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada degmada Sayla bari Saylo guyaal badan sanad geela badalay oo sidigta laalays inta kala ku sii daraydin وهاجك داود يا سدار كسامة يمكن واحد صوغ اللي دقمتي بلعبنا أو أتقول حد موت دينا عامدي توحنا نجاها يا بلعي بلعبنا اللي را ورت عبنا ضد مقاشوتها مقالة دي نواتنا يمكن سوق لأنه مقالة دي وضع علنا وجوري علن على مدى يردن أيها كذا تاجن ما دام اللي جت يروح اللي تورشوا جوري كستا مهارات كستا وحلو بوفي علن كحسبي أمبا وحلقة تاجن علنكي واركسان وح على الميشا كتاجن xusbiyada dhan baa isu kala qaybiyay dhinacaan oo kale waxa u badanaad arkasaan calankii kulmiye oo la moodo meesha isagu inuu badan yahay dhinacana wadani baa ka muuqda xagaas kale ucud baa ka muuqda marka xagaa ka haba ka muuqda waa dimuqraadi meesha dimuqraadi degmada ku soo dhawaada waa barwaaqo waanu talaabanaa meelahan aanu caana ka soo cabanaa magaalada waan ka bixi doonaa mar dhow orgi baa noo qoran orgi marka hadii ilaahay noo calfoon soconana dhamaantiin ku soo dhawaada degmada Balcabane oo ku taala xuduudka dawladda deegaanka iyo Soomaaliland dhinacaasoo kale waa xamo dawladda deegaanka xaggana waa Soomaaliland oo doorashada ayaa meel xasaasiya marasa marka wadadii Balcabane sidaad soo aragteen meel wanaagsan ayay marasa meelaha qaarkood daamirku baa haray oo la dhameeyay macnaha carruurka iyo xoolo dhigay meela ay dadku ku dhib mudan jireen ayaa waxa si fiican loo dhigay carruurkii oo aad ku marasa oodan dhiiri haduu imika roob nagu diilaa kala aan mari lahayn meelana waa laga degdegaya oo dad waa xiran tahay maadaama oo la samaynayo oo daamirku ma meel diyaar u ah waxa la sheegay inta Sayla iyo Balcabane u dhaxaysa in imika la dhameystirayo ilaa ku dhow 20 kilomitir oo iyadu imika aad u dhow waana intii ugu dhiiriga xumayd ay dadku dhiiriga ku gali jireen wadadani waa wada muhiim ah wax isku xidhaa saddex degmo waa degmada Sayla iyo degmada Balcabane iyo degmada Xarshin oo iyadu dhinaca dawladda deegaanka mustaqbalka inay gaadho la doonayo marka dhamaantiin muuqaalkan markuu soo gaaro subscribe saara ku soo dhawaada channelka Khadar Omar si Allah socotaan waxaan ku guda jirnaa safarkeennii degmooyinka Balcabane iyo Sayla oo saaka soo maray Balcabane Balcabane waxaan ku tala jirnay inaan daroonta ka dulkacno iyadana laakiin waqtigan oo yar saamaxo ay xagga bayteriga dabka ma garanaysa marka wada qurux badan oo laami aan ka dhicin soo maray Sayla iyo Balcabane isku xidhaysa wadadaas imka saad muuqaalada qaar ku aragteen dhulkuna waa barwaaqo waad arkaysaa wax ka baxay roobkii waa ka halka isaguna ka daayay roob qaar bana soo eriyaday oo Balcabane intaan sii joognay naga soo eriyaday xaggaas naga maro ka halka ka horeeyay hadaad arkasaan marka barwaaqadu sanadka saynu saakaba sheegnay amba de xilliga muuqaalkan soo gaari doono garan maayo muuqaalka bilowgiisii barwaaqadu sanadka waxay ahayd isdaba joog roobka aad u daay inkastoo imka yara kuleyl tahay oo uu roobku yar kala qaaday haddana waa barwaaqo dhulku doog intaas u leeyahay arkaysan wadadina meelahan waxay ahayd meelaha wadada ugu macnaha biyo fadhiistaan dirq lagu maro waxaan ku soo maray imika 80 aan laami ka 80 baan ku soconay wadada wala ma kama dhacdo waliba hadii la daryeelo oo laamidiin la gaaro arkaado loo yar kordhiyo Sayla ay isku xidhaysaa waliba imika shaqada waxay ka socotaa qaybta Sayla u dhow saaka ku aragteen marka waxaan leeyahay dhulkeena nimcaana fadhida
horaa loo soconaya hore